اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. العالمين إلهي أسقى أود له سقى نحريس له سقى أنا أمتي وحن كبر ينا إنه نحريستي جنسيه أو وهي بانجها أو عيسى عود. إلهي قبرك هو واسعيه إلهي قدك قري جنها وقدقو إلهي ماشين ملك في عن هجيو إلهي وحن كبر ينا qabrigana inuu maaragtay beer janno uga dhigo qiyaamahana uu dambi dhaafo oo jidka siraadka u sakhiro oo jannadiisii udgoonayd u dejiyo. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi wa sallam. ilaahay naxariisaasi waa Ciise Cabud Warmooge Islaan Muuse wuxuu ahaa korneel ciidamada buu ahaa 1923 buu dhashay sidaan taariikhda ku hayno 98 waa cimri ahaan buu joogaa 1939 buu wuxuu galay ciidamada militariga oo isagoo waqtiga 16 jira Talyaanigii iyo Ingiriiskii intaba wuxuu ahaa ciidan buu ka soo ahaa ilaa iyo hadeer Puntland intii ugu dambeysay waqtiyadii hore inta ciidanimadiisu waa shaqeynaysay 1958 dawladda Talyaaniga ayaa xirtay dagaalkii 64 uu ku dhaawacmay dagaalkii 77 uu ku dhaawacmay labada dagaalba dagaalka 64 dhibawa baa loo bixiyay dagaalka 77 saddex sargaar oo la socotay way ku dhimatay isaga nin kale ka badbaaday. ilaahay naxariistii janno siiyo waqti badan buu soo shaqeeyay caruurtiisa duriyadiisa awowihii saddexaad buu jooga labaad buu jooga waan filayaa. waxaa maanta la ii sheegay 150 inay yihiin dadka uu ka tagay oo isaga ka beermay marka taariikhdaas uu lahaa ilaahay naxariistaas siiye waqtiyadii uu miyirka qabay oo si fiican uu warami karay wuxuu ugu jeclaa dawladnimada iyo inuu arko muxuu ahaa dawlad Soomaaliyeed oo xoog leh waxa ugu badan oo naga warwareysan jiray sidaas ay ahayd ma noqon oo sidii waagu yaraa wax u arki jiray wax ma noqon laakiin wuxuu ku dhintay wadani odaya oo dawladnimo u soo halgamay
oo haddii ilaahay dhankeeda leeyahay jeclaana inuu arko iyadoo inta ka fiican marka ilaahay naxariistii ha siiyo wuxuu ahaa shakhsi muwaadin oo wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعد عبد السلام محمد فارح ديهال شرقروة waxaan tacsi marka hore u dirayaa qoyskii reerkii uu ka dhintay Ciise Cawad Warmooge adeerkii uu ahaa nin taariikh dheer leh buu ahaa waxaan leenahay dhamaantii Ilaahay samari iimaan hayna ka wada siiyo waxaan fariin ka wada odayaashii nabadoonnadii iyo fiqi Cabdinaasir Maxamuud Mir oo gaalka ay jira oo yiri tacsida iga gaarsiin islaamka iyo beesha reer Nugaaleed Garowe tacsidaasna anagoo dhan been saameysay intii meesha joogtay meel bayaa joogay baa nabadoonnadii waa joogaan dadkii oo dhan waa joogaan si baaxad weyn oo mugle aan uga soo qayb galnay tacsidaas anoo ku hadlay afka reer Garowe cidna kala saareen Ilaahay waxaan ka bareenaa inaan u duceyno ducuu naga mudan yahay Ciise Cawad Warmooge taariikh dheer buu lahaa wax soo koobi kara ma leh waxaan leenahay dhamaanteen Ilaahay samirheena ka wada siiyo waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan maanta joognaa qabrigii Allah u naxariistee Ciise Cawad Warmooge ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadiisii geeyo kitaabkiisa midigta ka siiyo cabadaal qabriga uu u sahlo waxaan uga tacsiyeenaa ehelka iyo qaraabada iyo saaxiibada oo ay ugu mudan yihiin carruurtiisa oo halkan joogta waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo isagana jannadii Allah geeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وسلم إن لله وإنا إليه راجعون maanta halkan waxaan isku nimay aaskii awoowe Ciise Cawad Warmooge oo ka mid ah acyaanta ama odayaasha magaalada hadda wax kale oo aan idhaahnaa ma jiro Ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsana Ilaahay ha geeyo ehelkii iyo qaraabadiina Allah ka samarsiiyo wuxuu ahaa oday weyn oo ragga wax garadka ama acyaanta ka mid ah hadee qof kasta waa dhimanaya qof kasta waqti buu leeyahay marka in la samro waa muhiimad ay tahay mar labaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariiso qabriga ha waasiyo jannada firdawsa geeyo eelkiya qaraabadina samri iimaan Allah ka alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa sahbihi ajma'in kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أولا مرحومك الله نحرست حق نقول يا وحوي إلهنا أبرنه سلادي وكنت كنا ودعيني هدنا وحوي وحو إيماني ملكانك سواشي ويديني مركا يا وحو ويدينينا مرحومك الله نحرست مرحومك الله نحرست كلمة حق الله كسوة اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم وسع قبره اللهم قه عذاب القبر اللهم نور قبره اللهم أكرم نزوله اللهم أكرم نزوله اللهم افتح له بابا من الجنة اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت اللهم ثبته بالقول ثابت وأسود دعينا مساجدك سهادي ما كنت كنا إلهي ما شفعه ويديني هل كان وهذا سؤال لو ويديني أنا إلهي وحنا ويديننا كلمة حق إلهي كسوكو لا إله إلا الله إلهي كسوكو كل يبقى أنت سنوات قدمه مساجده كحراية استخبارتي توحيدك أيو كل جناية الله أكبر إمرجيس إلهي وبركيه عبادته قلت الله أكبر مدي قوة ناقصني ميزانك الله ساره وحول بو عملنا هي الله هو بيقو وعيلتها وحندول تاجنا هو قبري عمركم ملك سهجارو هالكاس الله إيمانية كوينا كورينا هالكاس ولا مادين إنه هالكاس كل مانينا هالكاس وحويه وعمل آدي آد وير وبني آدم كلو تلقلي إن لو سيهايو أنت قيامه لقى جاريو هالكاس waxa loogu tagayaa amal wax kale loogu tagamayo ayaamaha adduunka joogtay wax alla waxa shaqaysatay baa halka ugu tagaysa ya haday wanaagsanayeen waa ugu tagaysa haday xumaayeen Allah naga cafiye waa ugu tagaysa ama waxa weeye wax kale oo ku anfacaya waxa ugu badan waxa weeye awlaad oo waxa weeye amalka ugu wanaagsan
inay u duceeyaan sadaqana u bixiyaan iyo waxa adduunka intuu joogay sadaqa jaariya uu la baxay labadaasa u soconaya laakiin weelka rasmiga ah waa camalka weey eelku waa noqonaya wax walba waa noqonaya waxa baaqi ku noqonaya ayaamuhu adduunka joogay wuxuu ka shaqeeyay ayaa baaqi ku noqonaya ilaahay khayr ma weydiinayna cumr badan iyo walaad badan iyo wax badan buu ka tagay camalkiisana Allah uu hagaajiyo laakiin maanta inaga inay haysataa inteena nool oo waxa way naftu ku jiro ayayna haysataa nabiga calayhi salaatu wasalaam al-a'maalu bil khawatim camalkana waxa lagu khatimo ayuu asalkiisu noqonaya اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة دعاء سهل إن لبديه ولما أيامها ذنبه يسمن كل جره خطره وابديه لما شذوا وابدنتهاي مصائبته وابدنتهاي فتنك وابديه إن مركز عرب كقلل استغفر الله العظيم وأتوب إليه دعائي قربتي الصبح دي يا صلاتي جماعاتك إلا إلى ريال الدنيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة الله تقو وقبرك الله يسكن سو سارو waxa uu horeeyo isweydiinaya waa salaad salaadu haddii hagaagto wax walba waa hagaagaya laakiin salaada haddii xumaato amal oo dhan waa xumaanaya marka salaada ugu muhiimsan wax rabbi loogu dhawaado maxaa yeelay waa xiriirka rabbiga iyo adoonkiisa weey waa 5 saac 5 jeer weey maalintii habeenkii oo qofku hor taagan yahay ilaahay oo muxuu leeyahay ihdina siraatal mustaqiim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin intaas ku dhawaaqayaa mar hadduu inta ku dhawaaqay waxay u dhowdahay hadduu salaadii tukaday waa adduunka laga gaxiyaa soo salaadii soo tukaday inuu xusn khaatima leeyahay u dhowdahay adkaarta iyo tawxiidka iyo waxyaalaha la aqsana ciiday ka badan yihiin marka waxa la rabaa arabka inuu ka zuulin inuu ka qalalin kalimatu laa ilaaha illa allah marka ayada la rabaa inaan ku dhagno waxa kale asal aan ku dadaalayna waxa weeye dadka eelka oo waxa weeye ciise uu ka tagay inay u sameeyaan sadaqa jaariya haddii wax lagu lahaa u malaynaya in deyn lagu lahaa laakiin waxa laga yaabaa baarinimadu ma aha adduunka in la joogo in la wadwado oo hadda dhakhtar la geeyo baarinimadu waxa weeye halkaas oo wax shaqo u soconaysa asaga inay jirin in shaqo loo socodsiiyo masaajid la dhisay ee la qoday wada la sameeyay yani waxa weeye waxyaalaha sadaqa jaariga aan dhamaanin nagu Soomaaliya haddaan nahay waxyaalaha kale isugu nimaadnaa oo aan dhamaanaya isla maalintii aan laba maalmoodba waxba ka harin laakiin asal waxa oo sunna ah waxa sadaqa jaariya weey ama waxyaalaha kale la sameeyo ama la dhiso qabriga ama tacsaha la dhigo ama hal la nuurado ama haduu la fariisto waxa waxba tarmayaan asal waxa taraya waxa weeye ducada waladun saalihun yad'u lahu walad saaliha oo waxa ilaahay ku xiran oo habeeniyo maan ducaynay saadu tukaba allahumma ighfir li wa li walidayya ya waxa ugu fiican oo gaariya ka weey iyo waxa weeye haduu ka tagay dad eela oo qaraaba oo dhaqaaleyn jiray ama awlaad yar in la xanaaneeyo weey waxyaalaha u baahan oo waxa baarnimada ugu muhiimsan ay tahay waxa dadkii wax tari jiray meeshuu baneeyay dad badan baa laga yaabaa inay ku noolaayeen dadka in la socdaa la doonayay wax alla wixii xuquuq ah haday jiraan in la bixiyo la doonayay ciise khayr badan baa u rajeynaa amal dheer waqti dheer buu noolaa khayr badan baa yani ayaamihii dambe daris baan ahayn masaajid isnay bay ku tukan jiray khayr badan baa u rajeynayna nin badan ma ahayn nin khayr badan buu ah mar khayrka Allah waa aqbalo waxaan insha Allah islaamkii baa joogo ducada asalka iska leh laakiin waxaan ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad weydiinaynaa kalimatu xaq Allah ku sugo qabrigana Allah waa siiyo qabriga rawda min riyadul janna Allah waa dhigo ilaahay ka ilaaliyo wax Allah wuxuu naco iyo wuxuu karaysto malaa'ikatu wanaagsan oo karaama barara kuwa Allah ku aadiyo وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين أصحاب الغور كاسل كاسين كاسني عيسى حسن ورسمة تذكر عيسى عود بو يغان إلهي نحرستي كنا هسي إلهي نحرستي كنا هسي إلهي نحرستي كنا هسي إلهي حق ليه هكون مسابح إلهي حق بلا آذن كهكبحي إلهي حولك النبي هكورافش إلهي حريرتي جنده هكوي إلهي قبرك هاوغنور إلهي قيامها هاوغشفع سيدي دجنا ودو قودا يرد هذا الله وغفر تضبط عدامه وطقيع عودا يغرمون كودان الله كدير إلهي ساسا نكبرين
إلهو كلمة حقا وافج إلهو كلمة حقا وافج إلهو مغانت هذا بريد مغانت هذا كدق إلهو مرتد هذا ديركتي مرتد هذا كدق إلهو ودقا هي له أهيلي إلهو ودان حريس له أن حريسو إلهو ودقا قرقار له قرقار إلهو ودا ديغ له أديغ إلهو ودا دم بداف له أدم بداف إلهو ساسانو كابرين إلهو حول كنبيك كوراب إلهو حريرتي جنة هو إلهو ساسانو كابرين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وذاتكم انتو يري الله ينكو أنفعو انتو عيسى وقد عيانا الله أقبل إساقنا الله كابا المري إلهي ساسانو كبرين وعد وحا إنو كفلان انت لين يري إنكو أنقارين ميشا إنو مالين والبدل هغنين ميشا إنو مالين والبدل هغنين وعد إنو كفلان انت لين يرينا الله ينوافجي انت حقا وإله إن فرينا الله ينوافج أصحاب القبور وصعونا النهاية نفتي وانا كدعينا كوا أنا وكلاين النهاية أنت إنه يفكر شوقنا وعمرجين ولمن يهي عيبه إن الله أستر واقي هاتن عمرجين لما هذا عيد الله إن ينقلينا عذابك الله هنا كنا بتقلي عذابك الله هنا كنا بتقلي ما نقول بهالك عصدير أنت كحبالا نمان لاقون مجرو ودتك اللي بينتيسي ما قرأت waxay ilaahu geysteen gooniya ma jiro waxaynu inagu u geysano ka fiicanna ma jirto waa saasa inagana inoo damaysa marka ayagana naxariistii janna Allah ay siiyo inagana khaatumadeena khayr Allah ku khatimo laakiin wadaca la yirheerka waxa loogu daro war waxa la ina farayo inaguna aynu aragno Allah ayna ku anfaco inaguna aynu ka adeegno ilaahay saasaanu ka barin ilaahu ceebtayada astur ilaahu amalka iyaga suubi ilaahu cibaadada tii geeri gaadhi ka dhig ilaahu muslimku meelu joogana maslaxad khayr qabta dhaxlig ilaahu saaxiib almuraad ruux walba muraadkiisa aan macsiyo dhib muslim ka bil ilaahu uga dhig inta aan oognahay oo ciise ugu dameeyay oo asxaab alqubuur oo mootana ilaahu iska caf ilaahu iska caf cafi aliya masaabax adoomada halka ku xabaalan ciise ugu dameeyay cafi aliya masaabax inagana cafi aliya masaabax khaatuma khayr maaliman ifjoogiyo uljoogba khaatumadeena khayr Allah ku khatim khaatumadeena khayr Allah ku khatim ciisana kelmadda xaqa Allah waafajiyo la ilaaha illa Allah wallahu waafajiyo ilaahay idankiis Allahumma salli ala Muhammad Fatiha